shirkani oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika kuwooda ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay baaq u direen dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dadka muxsiniinta ee Soomaaliyeed iyo waliba dadka deegaanka ka soo jeeda ee ganacsatada qurba joogta ah. ugu horantii waxaa goobta ka hadlay Suldaan Cabdinuur oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waa dhibaatada ka jirta gobolka Shabeellada Hoose ee fatahaada webiga ka soo bilaabato Afgooye Moori lambar 50 lambar 60 Sagaroole Bisle Daawud Jannaale dalka dhibka halka ka dhacay waxaan halka soo imaanay inaan walaalaha dhibka la qaybsano xanuunka hayo geedaha hoostooda jiifaan barnaamijka daadsan yihiin inaan la qaybsano weeyaan waxaan markaa baaq u diray dawladda federaalka ee madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha ka yahay iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta galeen inay shacabkaas u gurmadaan ay dhex istaagaan ma in afka laga hadlo waa in la tagaa oo la dhex istaagaa waa shacabkoodii waa kii federaalka iyo kii maamulkaba waa in loo gurmadaa fadhiga laga kaca waxaan kaloo baaq u dirayaa jamhuuriyadda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele shacabka reer Djibouti war dadka walaalihiina u soo gurmada dadka walaalihiina u soo gurmada waxaan kaloo baaq u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo shacabka reer Soomaaliland dadka hantida leh Soomaaliland reer Djibouti dadka walaalihiin soo gurmada waxaad u qaban kartaan ha ka hakarinina waa dhibaataysiin fatahaad baa ku fakatay cudurra ka dilaaci karo wax walba ka iman kara meeshaas arintaas waxa laga hortago hana loo gurmado marka waxaan rabaa kaloon halkan ku soo dhaweynaya xildhibaanadii ka hadlay sida wanaagsan u hadlay baaqina noo soo diray anaga Fuusiya Xaaji Ahmed iyo Xaaji Yuusuf Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Dalha oo ku baaqay qurba joogta ka soo jeeda deegaankan inay soo gurmadaan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ganacsade Axmed Nuur oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika waxaana yiri Koonfur Afrika ee ka soo jeeda Shabeellaha Hoose sida ay sheegeen ragii ugu horeeyay odayaashii iyo cuqaashii ugu horeysay waxaan anaguna ku beerinaynaa baaqeena dawladda Soomaaliya xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas wasiirada ganacsatada dhalinyarada haweenka ardayda cid walba oo deegaankaasi gaar ah uga soo jeeda iyo guud ahaan Soomaaliya oo idil iyo dawladda federaalka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed inay si degdeg ah ugu gurmadaan dhibaatada ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose ee fatahaada wabiyada si degdeg ah dadkaas wixii la awoodo iyo wixii karaana loola gaaro sidoo kale Mukhtaar Cabdi Faarax ayaa ka hadlay goob inta ficil hal loo bedelo inta lagu hadlayo oo dadka Koonfur Afrika ku nool sagaalkeeda gobol markay arkaan baaqan inaan uga falcelino si ficil ah oo walaalaheen isku garab taagno dhammaan inta siyaasiyiinta inta wax garadka iyo inta hibada Ilaahay u siiyay inay hawlaha u firfircoonaadaan waxaan ku boorinayaa inay hawsha u kacaan Maxamed Ibrahim Cafaaro oo ah aasaasiyaashii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika ayaa asna goobta ka hadlay waxaan halkan isugu nimid oo naga dhaba inaan u qaybsano xanuunka ee dibka soo gaaray walaalaheena degan tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose kadib markii halkaas fatahaad ka dhacday oo aynu ognahay meesha fatahaadu ka dhacdo xoolo inay ku nool yihiin beer inay ku yaalaan guryo inay ku yaalaan intaba wada saameysay taasaanu doonaynaa inaan hadaanu nahay jaaliyadda ku abtirsata dadka ka soo jeeda deegaamadaas in aanu si cad u cadeyno inaanu dhibkaas la qaybsanayno Abdaxakiin Ibrahim Shabeelle TV Johannesburg Koonfur Afrika